munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya isla markaana ahayd mid loogu dabaaldegayay 62 sano guuradii ka soo wareegatay markii uu xornimada qaatay dalkeena Soomaaliya isla markaana ay midoobeen gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ayaa waxaa lagu qabtay safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya iyadoo ay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Dr. Cabdiwali Cali Gaas diblomaasiyiin ka kala socday dalalka adduunka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalkani Kenya. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Kenya Cabdiqaadir Cabdi Diini oo munaasabada ka hadlay ayaa hambalyo u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed. meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed hambalyo ugu dirayaa sanad guurada 62 ee ka soo wareegtay maalintii xorriyadda qaateen iyo calansaarkii dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan inay midnimadooda ka shaqeeyaan horumarkooda ka shaqeeyaan dabaaldegu uusan ka noqon maalmaha xorriyadda kaliya. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Dr. Cabdiwali Cali Gaas isla markaana soo noqday madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland ayaa dhankiisa ugu hambaliyay shacabka Soomaaliyeed sanad guurada 62 ee ka soo wareegatay markii uu xornimada qaatay dalkeena. maanta waxaa ka soo wareegtay 62 sano maalintii gobolada koonfureed Soomaaliya xorriyadda qaateen iyo midowgii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya waxaa ka soo wareegtay 2 sano runtii waxaan isleeyahay dabcan waddankeenu dhib badan mutay 3 sano u dambeysay laakiin maanta meel fiican baan joognaa dhib waa dhacday laakiin waa ka soo kabanay waxaan moodaa hadda in dalku isbedel yani hor leh oo wanaagsan uu galayo meesha aan marayno 3 sano ka hor meesha taagana aad u kala duwan yihiin maanta waxaan ka hadlaynaa doorashada ku dhacday si nabadgelyo ah bishii hore laba madaxweyne xukunka isku wareejiyeen maanta waxaan ka rabaa marka inaan meesha ka kacno haddaan Soomaali nahay waxaan u baahannahay inaan gobonnimadayadii iyo sharaftayadii iyo wanaagii Soomaaliya lagu aqoonto waddankan wuxuu leeyahay taariikh fiican wuxuu leeyahay dhaqan fiican wuxuu leeyahay history iyo oo aad u fiican dad yani kalsooni badan qabi jiray oo proud ahaa oo yani dadka adduunka u sareey ahaayeen waan rajaynaynaa marka in spiritkaasi uu weli lagu jiro ugu dambeyntiina safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo munaasabada soo xiray ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay midnimada ummadda Soomaaliyeed isagoona hambalyo ku aadan maalmaha xorriyadda u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed. maanta waxaan la joogaa 62 sano dhibaatooyin baa soo dhacay civil war iyo ayaa dadkeena ku dhex dhacay waan ka soo kabanay waan istaagnay hadda waan taagannahay waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed in ay ka fogaato wax kasta oo midnimadeeda dhibaato u keeni kara nooc kasta ay noqdaan waxaan jecelahay ummadda Soomaaliyeed inay midowdo oo ay midnimadeeda ceshato iyo calankeeda ay dhiigga u daadisay oo dad badan oo Soomaali ah ay ku dhinteen gabdho badan ay ku dhinteen. dhinaca kale munaasabada kala duwan oo loogu dabaaldegayay 1 Luulyo oo ah markii uu xornimada qaatay dalkeena Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi kuwaasi oo uu ka qayb galay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya Xabiib Maxamed Cigaal iyo sidoo kale jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya.